وقيبتي تبنادي برنامجيدي تحناها أنو كجا هدليني تاريخ الصوماليدا آذن militariga haddaba talada la wareegay bishii Oktoobar sanadkii 1960 mucaaradadii ugu weyneyd ee xagga shacbiga ka timaada waxay ka dhalatay xeerkii qoyska oo golihii sare ee kacaanku ay soo saareen bilowgii sanadkii 1975 talaabadaasi waxay keentay in culimadii diintu ay ka hadlaan sida xeerkaasi qoysku uga soo horjeedo diinta islaamka oo ummadda Soomaalida 100% oran karo way aaminsan yihiin xeerka qoyska oo ka hadlayay sinaanta ragga iyo haweenka marka ay timaado xagga dhaxalka didmadii ay wadaadadu dideen waxa ay tilmaameen in xeerkaasi uu ka soo horjeedo aayadaha quraanka waxa kacaankii dalka haystay ay u dileen taas didmadii ay diideen 10 wadaad 23 kalena waxa lagu xukumay xabsi dheer inta aynan haddaba khudbadii dhibaatadaasi ay ka dhalatay ee ujeediyay Maxamed Siyaad Barre aynaan guda gelin afgambigii uu hogaaminayay markii talada ay qabsadeen bishii Oktoobar sanadkii 1969 mowqifkii xagga diinta ma muujiyeen mise ma muujin ama halkay ka taagnaayeen maxay ahayd waxaanu qadar imaka dhageystayaal idinka maqashin doonaa Maxamed Siyaad Barre oo ka hadlayay arrimaha xagga diinta khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyo markii talada ay la wareegeen waxa khudbadaasi uu jeediyay 23 bishii Oktoobar sanadkii 1969 waxaana guud ahaan uu kaga hadlayay ciidamada talada qabsaday waxa ay doonayaan inay sameeyaan iyadoo diintuna ay ka mid ahayd waxaanu doonaynaa inaanu marka ka dhigno dalkii dal shaqo ku dhisan inaanu dadkii ka dhigno dad shaqaga u hoggaansan oo cis iyo dhowrmo nin iyo nin ahaan ay ka dhaxayso hay'ad iyo hay'ad ahaan ay ka dhaxayso caaniyadana ay ictiqaadsan tahay in laga maarmaaya waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno laalooshka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaanu ku tilaabsanno qaraarakiilka inaan baabi'ino waxaanu doonaynaa inaan ku tilaabsanno qabiilkii xumaa inaanu baabi'ino oo laynaga soo galayay oo ajnabigu markay rabaan inay nahaleeyaan ay ku tiirsan jireen oo sabab ka dhigan jireen adigu qabiilkeed tahay adigu xaggee ku dhalatay adigu muxuu ahaa kaafay tahay hebel ma waxbaa isu tihiin hebel waxbuu kaa sheegaa maxaa sababteed u tahay inuu idinka kormaru rabaa inuu idinka hoosmaru rabaa wixii ay kixi jireen nimankii gumaysayaalka ahaa oo haatana masawirkooda beentu nala joogo maskaxdooda iyo caqligooduna meel kale uu ku dhisaadaya inaanu baabi'ino oo aanu marka tirtirno meeshii dadka ama aan isku kalsoonayn ama aan iimaan ka lahayn amaba adeegayaalka ajnabiga ah amaba ajnabiga laftiisu ay ka soo geli jireen inaanu awdno oo Soomaali weynna ay barbar ku raacdo kuwa waxaas miskiinka ah taabacsanna aanu geed cidlaa ku xiro dad furana ay u muuqdaan kuna xoreeyno waxaanu doonaynaa dhaqaalaha dalka inuu hore u kaco in shacbiga Soomaaliyeed caafimaadkiisa iyo qoomiyadiisa inay hore u kacdo waxaanu doonaynaa inaanu dhalinno qoomiyadda la yidhaahdo Soomaali la yidhaahdo midnimo la yidhaahdo wax wada qabsi la yidhaahdo wada noolaan inay dhalato waxaanu doonaynaa inaanu ku beerno dadkanaga inay ceeb tahay xanta iyo afmiishaaraynta iyo beenta iyo sabidaadda iyo jaajuuska iyo waxa qashinka ah oo aakhire iyo adduunba ku foolxun waxaanu doonaynaa diinta islaamka oo aynu haysanno oo la haleeyey oo loo bandhigay nin kastaaba inuu ku xayaaro inaanu xoogga aanu haysanno ku gees istaagno oo diintu ay quwi noqoto bacdana ay tahay gundhigii shacbiga Soomaaliyeed ay tahay hadalkaasi waxa uu ahaa khudbadii ugu horeysay ee uu jeediyay Maxamed Siyaad Barre haddaba markii golihii sare kacaanku uu soo saaray xeerkii qoyska ee sababtiisa wadaadada lagu laayay bishii January ee sanadkii 1975 waxa Maxamed Siyaad Barre uu jeediyay khudbad uu dadka ugu sheegayay golihii sare kacaanku go'aanka ay qaateen khudbadaasina waxay ahayd waxaan idin sheegayaa in maanta uu gaaray golaha sare kacaanka inuu idin sheego in gabadha iyo wiilka Soomaalida isku xaq yihiin in halka ay isaga xaq yihiin waxa jiri jirtay haddii nin dhinto oo gabar kaliya ka tago haaway aan waxba ugu jirin xoolaheeda inay boobaan haddii taas ku dhacdo gabadha xoolihii aabeed inay koygeed leedahay ee wax kale ay ka qaadaynin waxaa jirtay in maxaa la oran jiray rubuc والثلث والخامس والجن ما jirto taas labada qof way isku mid way isku xaq waa simayhiin xuquuqda muxuu mujtamaca ama waaridkooda ay ka dhaxdaana waa isugu mid wixii maanta ka dambeeya ummadda Soomaalida mana kala hooseyso
taasu isla markii waxay fariisinaysaa in muxuu ahaa labada qof oo ragga iyo haweenka ah ee isqabaa inay isku xaq yihiin waajibkiina inuu u siman yahay xaqiina inuu u siman yahay ayay caddaynaysaa. markaas bal hadda aynu taana ku qotomino hore u dhiga ummadda loo yaqaano haweenka adduunka aynu inagu rukunkii ugu horreynay saas ku xabaalno. waxaan rajaynaynaa kuwa weli dambeeya oo maskaxdu ay ka hadlaysan tahay inayna soo raacaan oo dadka aadamiga xaqiisa inay simaaneen rag iyo dumarba inay simaan baan ka rajaynayna. maxaa waxay addoonnimaa jirtay addoonnimadii jirtay si loo baabaasho addoonnimada waa in la baabaashaabay jirtay. haddaan addoonnimo jiri lahayn addoonnimo kama muuqateen kitaabkeena kama muuqateen. haddaan hore usoo kaco weliba haweenka iyo ragga sulud iyo rubuc maxaa keenay waa furuda waxa keenay gabdhaha markay dhashaan waa la xabaali jiray. wuxuu ninka badowga ahaa ee waaga xarabkaasi uu ku fakeri jiray muxuu ahaa intay xeeb kuu keenahayd ha dhimato caqligooda iyo rusaasku ku socon jiray. diinta islaamku wuxuu ku dhisnaa inuu xoreeyo ummadda oo u xoreeyo tilaabo ama midkii xoraysi kara markaasba in tartiib loo xoreeyo. maalin ba ayad la soo dejiyo maalinba tilaabo la qaado ilaa muxuu ahaa saad u garanaysaan qur-aanka aad ka helaysaan 50% wada nasakhan oo ay nasakheen ama baabaasheen ayada kadib ka soo degay markii dadkii fikradiisii iyo garabkiisii siyaasiga ahaa iyo aqoonsigii aadaminimadu oo hore u kacay. waxaan rajaynayaa inay qoladiina hor fadhidaa iyo soomaalida kaleeto iga maqli doontaa baalkan ee microfonka haddaan hor taagnahay ama raadiyo iga maqli doontaa inay wax magaradka cilmiyaraha qur-aanka duleeyaha muxuu ahaa islaamka halleeyaha inay saas u sheegaanin. waa gar in aad ila yaabtaan waa gar maxaa wacay waa laydinku shubay weligiina laydinkama shubin. anna haddaan idinku shubay wallahi anaa idin fiican iyo bilah waa kitaab kaamila wallahi naseexanaa idina waxay idinku shubeen waa beento qaraaba idinlama ahayn dhashiina dan kama lahayn wadankiina dan kama lahayn sharafkiina dan kama lahayn ummadnimadiina dan kama lahayn inaad xifataan iyo xoro midna iyagu muraad kama lahayn dantooday wataan waxay ruuxooda weligood inay tooda idinku daafacaan. laakiin diyaar baanu ahay taanada inaan daafacno naftiisagaba naf kala maqalkaalo markaan anagu teenna hanano ayaynu dadkala waxtari karnaa. marka hadalkaas ujeedaydu waxaa weeye war mukasilnimo waktigeed gudub waxaynu dhignay Soomaaliya 75 ama 78 awaad baa maanta wax qori kara. marka masifaar baan weliga ahaanayna roog salad iyo muxuu ahaa gulad bin culeyd oo laba taajira oo iyaga xoolada daafacayo miyaanagu xaliil u ahaanayna oo beenta dhigaan baan dhigayna oo marka wax alla wixii aynu wax ku qabsan karno oo ama fikrada ama farsama miyaa laynaga sixinaya yalla ma yeelina bas gaajaysan turan maalmood qabay iyo diinka yaqaan hadday naagtay dabadii rabanaysa maxaa waxay noloshu waa xaq inay noolaato. taasi waxayd khudbaddii uu jeediyey maxamed siyaad barre sanadii 1975 markii la soo saaray xeerka qoyska waxaana xeerkaasi lagu beegay sanadkii jimciyadda qurumaha ka dhaxaysa ay ugu talagashay inuu noqdo sanadka haweenka. dhegeystayaal imakana waxaanu idin maqashiin doonaa aayadaha qur-aanka ee ka hadlayay dhaxalka xagga qoyska ee wadaadadu ay markaasi ku doodeen in uu madaxweynuhu ka been sheegay. yuusiikum allahu ilaahay wuu idin dardaarmaya fii awlaadikum fii sha'ni awlaadikum awlaadiina aad dhasheen sha'nigoodu idin dardaarmaya isaga xaqooda idinka jecel yani bani aadamka fiiri awlaadi adigu aad dhashaan lagu dardaarmaya ilaahay kuu dardaarmaya yani ilaahay siduu khalqigiisa yani u jecel yahay siduu ugu roon yahay awlaadaad dhashay ee adigu kaa soo go'day iyaa sidaad ula mucaamaloon lahayd ba lagu dardaarmaya oo lagu leeyay sidaa iyo sidaasi. haddii kale adigu lagu daayo waxaa suura inaad qaar qarisid yaa dhici karayso kolka ilaahay baan ogolay. dardaarankii waa maxay lidakari kan lab waxa u sugnaaday midla xadil untayayn laba dhidig dheeftooda u sugnaatay laba dhidig intay qaadato iyo ninkii qaadanaya. haddii meesha ninka oo ka tegay wiilal iyo gabdho wiilkii laba gacmood buu leeyahay idan gacan bay leedahay. fa in kunna hadday ahaadaan yani caruurtaa laga tegaya nisaaa naago hadday ahaadaan naagahaasoo fawqa sanatayn laba iyo wax ka badan ah hadday ahaadaan falahunna naagahaas hablahaas waxay leeyihiin thuluthaa maa taraka maydka wuxuu ku tegey labadiisa thuluth bay leeyihiin. ninkii wuxuu ku tegey waa dhintay laba gabdhood iyo wax ka badan buu ku tegey
waxay leeyihiin maalka markii saddex loo dhigo laba gacmood bay leeyihiin wain kaanat hadday ahaato gabadha oo ka tegi waaxidatan mid hadday ahaato ninkii waaba dhinto hal gabar buu ka tegi falahaa iyadu waxaa usugnaaday annisfu nis bay leedahay maalku nuskiisay qaadanaysaa waliabaweyhi maydka dhintay labadiisa aabo waxaa usugnaaday hooyadii aabihii waxaa usugnaaday likulli waaxidin mid la arko oo minhumaa labada aaba kamid a waxaa usugnaaday assudusu meeshii lixaad yaa usugnaatay minmaa kii xaggii bay uga sugnaatay taraka oo ka tegi nin baa dhintay labadiisa aabuu ka tegi aabihii hooyadiiba ka tegi mid walba aabihii hooyadii mid walba wuxuu leeyahay sudus iyuu leeyahay meeshii lixaad waas goorma in kaana hadduu ahaaday lahu meydkaa dhintay waladun hadduu walad u yahay nin baa dhintay caruur buu ka tegi ama gabdha ha ahaadeen ama wiilal ha ahaadeen wuxuu dhalay buu ka tegi aabihii hooyadiina waa ka tegi aabahay hooyada waxay leeyihiin maalka mid walba meel lixaad baa laga siinaa mid walba meel lixaad iyay ku leeyihiin maadaama isaga awlaad oo leeyahay fain lam yakun hadduunan ahaanin lahu maydkii waladun walad hadduun u ahaanin oo warisahu ay dhaxlaan abawaahu labadiisa aaba keliya ay dhaxlaan faliummii hooyadii waxaa usugnaatay assulusu meeshii saddexaad wuu dhintay caruur ma laha aabihii hooyadiiba ku tegi aabihii hooyadii iyo ku tegi hooyadii waxay leedahay meel lixaad iyay leedahay inta kale waxba kuma lahaa aabbahan aska qaadanaya midna waa nasiib midna waa casab kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamed macallin oo sharax ka bixinayay aayadahaasi qur-aanka haddaba cismaan maxamed jeelle oo ka mid ahaa golihii sare ee kacaanka oo barnaamijyadan aanu si weyn ugu soo xiganayno ayaan wax ka weydiinay go'aankii xeerka qoyska iyo wixii uu kala kulmay madaxdii waddamadii carbeed markii loo diray inuu ka soo qanciyo go'aankaasi ay qaadatay dowladdii militariga ahayd ugu horraantii waxaan rabaa inaan kuu sheego horta anigu inaanan goobjoogayn oo dalkaba joogin markii qaanuunkaa la keenay ama la ogolaaday ama wadaadada la dilay waxaan jiray qaahiro baan jiray waxaan soo saxeexayay waxaa la yidhaha alwuxda aliqtisaadiya alcarabiya ama midaynta dhaqaalaha carbeed wax la yidhaha markii aan ka soo baxayna waxaan ku maqlay arrintani anuu sanca joogo oo yeman sii marayo ayaan ku maqlay markiiba taar baa lai soo diray degdeg usoo galay leeyahay ayadoo lay odhanayo waxaad hogaaminaysaa wafdi oo haddana dalalkii islaamka oo shirku qabo waxaa jiray shirweynaha culamada muslimiinta wax la yidhaha oo markaa laga sheegay baytulmaqdes ayaa waxaa lagu qabanaya baghdad marka muctamar culamada almuslimiin waxaa kasoo qeyb galay wasiirada awqaafta ama diinta ra-iisul wasaareyaal qaarkood rag badan oo baarlamaan ku jiro maalintaan galay maalin saddexaadkiiba haddana aan soo dhoofay waxaan isku dayay inaan mataqaana adigu ka galgasho oon idhaa war arrinta tan anigu ma daasici karayo mana qabin horena marar badan baa la isugu dayay in la keeno laakiin waa la diidanaa waanu diidnay arrintaas kuma aanan guulaysan aakhritaankii inaan wafdi hogaamiye ayay noqotay markaan inta kuu sheego wanaag fara badan kalama aanaan kulmin maxaa yeelay shirkii nafsadiisu waa cambaaray horta mataqaanaa soomaaliya anigu kulley meesha hadal baan ka jeediyey laakiin hadalkaadu ma noqon karayo midku difaacayo wuxuuse noqon karayaa mid oo dhexdhexaad aho war adduunka uga sii darinaha marka waxyaaba la difaaci karaya maanay ahayn madaxyaalka qaarkood anay naba qaabilinba sida anwar saadaad allah u naxariiste ixtiraamaamaan ixtiraamay cabdullahi kooga ayaa safiir meesha ka ahaa guri la yidhaaha qasrulcuruuba oo 2 maalmood ka hor boqor xuseenkii dhintay allah u naxariistay isaguna adduunka wada dhamaaday uu ka baxay boqoradii madaxweyneyaalka lagu soo dejiyey ayuu aniga igu dejiyey wafdigiina guryo kale ayaa la geeyey laakiin warradii inuu naga qaado ayuu diiday haddaba dhegaystayaal diidmadu kuma koobnayn madaxweynihii hore ee waddankaasi masaarda anwar saadaat oo qudha ee waxaa jiray madax kale oo carabeed oo ka cadhootay xeerkii qoyska ee milatarigii soomaaliya qabsaday ay soo rogeen iyo dilkii la dilay wadaadadii sheegay in xeerkaasu uu xadgudub ku yahay diinta islaamka sida cismaan maxamed jeele uu noo sheegay waddan kale oo carabeed ayaa isna boqorkiisu uu diiday inuu la kulmo inkasta oo markii dambe laysku noqday oo lala kulmay cismaan maxamed jeele ha inoo sii faahfaahiyo habeenkay dib isugu noqdeen oo waana noo galay isagoo waxba kala odhan warqadiina intuu qaada meel iska dhigay sidii waxaan astaahilin la akriyo ilaa waxay ka hadli uu sii ogyahay kumuu ahaa boqorkaasu allah naxariisto boqor faysal u ahaa markaad dhinac iska dhigto dareenkaasi dalalka muslimka ay qaateen ka sokow
inkastoo dii sheegtay adigu inaad goobjoog ahayn markii go'aanka la qaadanayay wadaadada lagu dilayo maxaad ku warqaadatay golihii mayay isku wada raaceen mise sidii hanti wadaaggaa la isku diidanaa saan kuu sheegay horaba waa loo diidanaa qaanuunka waxaa jiray shir kale oo shirka culamada islaamka aan kuu sheegay baghdad ka dhacayay feer socday oo la yidhaha shirkii haweenka adduunka oo mooska ka dhacayay marka waxay ii sheegeen in guddi loo saaray guddigaas oo madaxdu ahaa maxamed sheekh cusmaan oo hadda weli joogo markaan warsaday maxamed sheekh waa yidhi maxaa see wax u dhaceen wuxuu ii sheegay inay tala ku bixiyeen inaan loo baahnayn qaanuunkan wax muraadahoo maanta annaga naga halaabaynayna jirin wuxuu naga bi'iyo mooye hataa wuxuu ii sheegay in hablo ku jiray shirka oo ay ka mid ahayd faadma axmed caalin cureyo inay diideen in la yidhaha aayadihii ilaahay ayaa haweenka dartood loo bedelay dib ayaynu ugu soo noqon doonaa arrimaha Soomaaliya hase yeeshee haddii aynu u baydhno dhinaca Jabuuti bishii Noofambar ee sanadkii 1974 ayaa doorashooyin ka dhacay waxa maamulka xoog ku yeeshay mujtamaca Cafarta xisbigii la odhan jiray LPAI ayaa isaguna rasmi ahaan waxa uu noqday xisbiga mucaaradka waxaa jiray jabhad kale oo mitida oo marka magacooda la soo gaabiyo la odhan jiray FLCS oo iyaguna saldhigoodu ahaa magaalada Muqdisho bishii May ee sanadkii 1975 ayaa xisbigaasi dad taageersani waxay afduubeen danjirihii Faransiiska ka joogay magaalada Muqdisho falalkii kale ay ku kaceenna waxaa ka mid ahaa bishii February ee sanadkii 1976 ayaa waxay afduubeen gaari basa oo siday carruur ay dhaleen ciidamadii militariga ahaa ee Faransiiska ka fadhiyay Jabuuti waxaana ay ku xidheen siideynta carruurtaasi in shuruud la'aan xorriyad lagu siiyay Jabuuti hase yeeshee waxba kamay suuroobin waayo ciidamada Faransiiska ayaa weerar ay ku qaadeen waxa ay ku soo furteen carruurtaasi iyadoo dadna ay ku dhinteen haddaba bishii December sanadkii 1975 ayaa kadib markii uu kulan dhex maray Cali Caarif Burhaan oo madax ka ahaa Jabuuti iyo madaxweynihii Faransiiska ee waqtigaasi Giscard waxa la isla gartay in Jabuuti ay xornimo qaadato Faransiiskuna uu saldhigood halkaasi ay ku sii lahaadaan xagga militariga bishii March ee sanadkii 1977 ayaa wada hadallo lagaga hadlayo xornimada Jabuuti ay ka dhaceen magaalada Paris bishii June 27keedina Jabuuti waxa ay qaadatay xornimadeedii waxaana madaxweyne ka noqday Xasan Guuleed Abtidoon ra'iisul wasaarana waxa ka noqday Abdallah Maxamed Kamil waqtigaasi ayaa jamhuuriyadda Jabuuti waxa ay noqotay wadankii 49aad oo ka mid noqda ururka midnimada Afrika iyo wadankii 22aad ee ururka Jaamacadda Carabta barnaamijkuna maanta dhegeystayaal halka ha inoogu joogo